بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا ليال تدوينها داد مراد قبل كداد مراد يبقى على الأود وينه وحان آدي وقفر حسنا هاي وآدي ذي كم هاد على يعني وفتق إلى السعودة سيدا قيمة هي قائلة نوصل دويسين سيدا عادة هاي إلى برجي أولو السعودي أنا هالكيدو كنا بد كورجي برتشرف تعاد نقص ويسبر هذا الرتقني برول با سقيمة هي قائلة أي نوصل دويسين عادية نقل ذينا بركا آد بردكم هذين سيدا قيمة هلا وكحم هاي ما أنت ملع على تاجنتين إلى وقت دير كله من كريمين وحوي marka ugu horeysa waxaan aad idinka tacasiyadeynaa gudoomiyaha Allah uu naxariistay geeriyooday ee naxariistay jannada Ilaahay ka waraabshay samariyay mana kulligeen iyo ehelkiisa inaga wax inaga wada siiyay walaalayaal maanta safarka yagan haddii aanu gobolkan ugu soo horeysinay waxa ay muujinaysaa dareeminadayada annagoo dhowr gobol oo dalka ka mid ah soo mari doona waan ognahay dhibaatooyinka iyo hawlaha aad sheegateen iyo waayaha aad sheegateen waa qaar jira waa qaar u baahan wax ka qabasho waa qaar u baahan wax in wax laga taro oo dadka baahiisa wax laga qabto sida waajibkiisa dawladdiisu tahay insha Allah ta'ala waa malay karta waqtiga muddada aanu jirin muddo dheer ma ahayn muddo aad iyo aad u kooban bay ahayd waxyaabaha dalka baahiyaha yaalana aad bay u fara badan yihiin waxaan isleenahay muddadii gaabnayd oo maamulka dawladdan dhisan tahay uu jiray muddo yaroo gaaban bay ahayd muddada gaabnayd wax badan baan isku daynay inaan qabanno dhinac walba wax tarbay ka buuxsay haday wadooyin tahay haday ku magaalooyinka tahay iyo haday ay tahay wax qabasho kale haday tahay iskuulada haday tahay tacliinta haday tahay shaqaalaha oo mushaarka loo kordhiyo iyo ciidamada haday tahay waxyaabo fara badan baan isku daynay insha Allah sanadaha soo socdana aad iyo aad baan u balaarin doonaa waanu ka sii kordhin doonaa Israa'iil ka badan geed dheer iyo geed hoosba insha Allah ta'ala waanu fuuri doonaa inaanu baahiyaha dalka haday tahay xagga caafimaadka haday tahay xagga amniga haday tahay xagga tacliinta iyo dhinacii kasta ay tahayba inaan wixii aanu ka qabanno baahiyaha gobolka waa noo sheegteen aad baan uga warqabnaa aad baan ula soconnaa waxaanu ku dadaali doonaa intii itaalkayaga inaan wax ka darro waxna ka qabanno dhowaan way noo yimaadeen matalan ergooyin ka socda ama wufuud ka socda gobolka Togdheer oo noogu timid hargeysa muxuu ahay kana hadlayay sidii wadadii dheerada halkan u baahnayd loo dhiso ee lagu xiri lahaa hargeysa barcala isku xiri lahaa wadana oo iyadana aanu ballan qaaday inaanu iyadana aan wax ka qaban doono insha Allah ta'ala aanu contribution ku darsan doono dadweynuhuna uu kiisa la iman doono insha Allah ta'ala xabsiga waanu ballan qaadanaa inaanu sameeyno insha Allah ta'ala isagana waanu ballan qaadanaa inaanu sameeyno marka walaalayaal milci baa taagantiin goorxun baa taagantiin marka naga raali ahaada dareenka aad nasiiseen iyo talooyinka aad soo jeediseen waanu noodgaraysanaynaa waanu qoranaynaa waanu qaadanaynaa maskaxdayaanu ku haynaynaa aad baan ku mahadnaa sida qiimaha iyo qaar aan noo soo dhaweyseen waa mahadsantiin ilaahay garabkiina ha galo